Shirkadda Globe and Mail ee ka soo baxda dalka Canada ayaa maanta waxa ay baahisay in golaha militariga Suudaan ee sida kumeel gaarka ah xukunka dalka u haya ay heshiis la galeen shirkadda Dickinson and Martin oo ka dhisan dalka Canada oo uu hawlaheeda mas'uul ka yahay sarkaal hore uga tirsanaan jiray sirdoonka dalka Israa'iil. heshiiska uu la saxeexday gudoomiye ku-xigeenka golaha militariga Suudaan Maxamed Xamdaan Dulqi oo loo yaqaano Xamiidatu ahaana heshiis dhigaya in ay shirkadaas oo qaabilsan xiriirka caalamiga ah ay ka shaqeyso oo dalka dibadiisa ugu ololeyso taageerana u raadiso golaha militariga Suudaan iyada oo hagaajinaysa sumcadda golahaasi. heshiiska labada dhinac ayaa cadeynaya in golaha militariga Suudaan ay shirkadda siiyeen $6 milyan oo ay kharashka mid ka mid ah u isticmaalayso sidii ay caalamka uga dhaadhicin lahayd aqoonsi golaha militariga ka helo beesha caalamka. waana heshiiska ku soo beegmaya xilli golaha militariga Suudaan lagu eedeynayo in ay bilowgii bishan dileen dad ku dhow 100 ruux oo ka tirsanaa banaanbaxyadii magaalada Khartoum ku dalbanayay in golaha militariga Suudaan xukunka dalka ku wareejiyaan dawlad rayid lagu magacaabo Globe and Mail waxa ay baahisay dukumenti ay hay'ado Mareykan ah diyaariyeen oo ka warramaya in shirkadda reer Canada ay aqbashay inay ka hawlgasho sidii ay ugu hagaajin lahayd muuqaalka guud ee golaha militariga Suudaan iyagoo xukunka dalka qaab inqilaab ah ku qabsaday kadib markii ay casileen oo xabsiga u taxaabeen madaxweynihii hore ee Suudaan Umar Xasan al-Bashiir 11kii bishii Abriil ee sanadkan 2019. shirkadani waxa ay ka shaqeynaysaa sidii ay ula socon lahayd warbaahinta dawladda iyo kuwa caalamiga ah isla markaana ay ugala xaajoon lahayd warbaahinta qaabkii ay wararka Suudaan ugu dhigi lahaayeen qaab maslaxad u ah golaha militariga Suudaan. dhanka kalena ay shirkaddu raadinayso maalgashooyin dhanka shidaalka ah oo maalgashada shidaalka dalka Suudaan. qalabka ay u baahan yihiin u raadinaysa ciidamada gurmadka degdega ah ee Suudaan oo uu taliye u yahay Maxamed Xamdaani. waxa kale oo ay shirkaddu ka howlgali doontaa qaabkii ay u hagaajin lahayd xiriirka golaha militariga Suudaan la leeyahay dalalka Ruushka iyo Sacuudiga iyo sidii ay u suuro gelin lahayd kulan ay golaha militariga Suudaan la yeeshaan madaxweynaha dalka Mareykanka. intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa mowduuceeni maanta. subscribe saar saaxiibadana la wadaag. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.